muuqaalkan inta aan guda galin marka hore noo sii sheer garay caawa talooyin khatar baan rabaa inaan idiin dhiibo oo qof kasta oo dhalinyaro marka u baahan inuu ka faa'iideysto marka adig kaligaa isku koobin sida adiga aan kugu la wadaagay marka adigu dadka kale asxaabtaada iyo familkaaga la wadaagsay uga faa'iideystaan oo sii sheer garay talada koowaad ee muhiimka ah rabaa inaan idin la wadaago waxaa weeye wax kasta oo aad doonaysid inaad samaysid dadka ha u sheegin haddii aad doonaysid inaad business u bilowdo haddii doonaysid inaad project cusub bilowdo haddii doonaysid waxbarasho cusub inaad bilowdo ha sheegin okay inta hore waliba qarso sababtoo wax markaa sheegtid waxa imaan karta in lagu xumeeyo oo lagu dhaw waxaas dad baa hore ugu guul dareystay in markaa dadka qaar ku xaasinimeeyaan markaa ka daba sameeyaan in dadka ishooda kugu dhacdo in lagu cabsi geliyo marka waxyaabo badan baa imaan karaya marka waxa markay bilowgiin ha sheegin marka hore ku dhaqaaq marka meel fiican gaarsiis marka dadka ku dhow ee marka aad ixtiraamayso ama asleeyahay tala fiican bay ku siinayaan u sheeg laakiin waxa markay cusub yihiin ha ku faanin ha sheegin sababtoo waxa la sheego inta badan ma guuleystaan adoo aan siinaa waxa weeye wax kastoo doonaysid inaad bilowdo aad ka baqanayso inaad bilowdid waxaa bilaaw oo ku dhaqaaq marka adigoo baqanaya markaad in yar wado markaad kalsooni baa heli doontaa geesinimo kusoo geli doonto kadibna waa kasii socon doontaa waxaa laga yaabaa wax kastoo wanaagsan bini'aadanka wixii u fiican inta badan ma jecla inuu sameeyo marka wixii aad ka baqanayso ama aad culays ka dareemayso ilaahay tala saaro kadibna bilaaw qodobka saddexaad doonaan in si waxa weeye wax kasta waxaad ka horeysiisaa horumarkaaga caafimaadkaaga cibaadadaada inta haddii aad ka roonaato ama aad iska adkayso dadka kale wax u qaban kartaa haddii maanta aad caafimaadkaada dayacdo cid kale wax uma qaban kartid haddii cibaadadaada iyo ku xidhnaashaha ilaahay marka aad dayacdo cid kale wax uma qaban kartid oo naftaadii baad kaa burburaysaa haddii adiga horumarkaaga iyo dadaalkaaga waxbarashadaada aad dadka kale ka horeysiiso waxay imaan doonta marka inaad meel cidla soo istaagto marka si dadka kale wax ugu qaban kartid marka hore waa inaad adigu selfish noqotaa oo horumarkaaga caafimaadkaaga iyo cibaadadaada aad wax kasta ka horeysiisaa si dadka kale markaa wax ugu qaban kartid talada afraad aan siin doono aqoontaada iyo xirfadaada wax micno ay samaynaysa male waxaa micnaha ku sameynaya waxaa weeye inaad dhaqdhaqaaq samaysid in waxaana barato suuqa la gashid inaad dad baratid inaad xirfadahan ka shaqaysid inaad magaalada gashid imika waxaa laga yaabaa dadkii jaamacadda asla dhigateen ama iskuulka in dadkii ugu fiicnaa kaalmaha koowaad geli jira in imika bilaa camal yihiin waxaa laga yaabaa in jaamacadda kaalinta koowaad geli jira in maanta waxba qaban inuu meel iska fadhiyo because qofka aqoontii uu lahaa waxaa laga yaabaa inuu meel la fadhiistay uu la xishooday uu meel galay waxbarasho kale uu ku mashquulay waxaa arkaysaa mararka qaar qof jaamacad ka baxay inuu dibadda jaamacad kale u tago uu soo noqdo hadhow isagoo master wato wadankii bilaa camal waxba uuna qabanin marka taa micnaheeda uma jeedo qofkii inuusan wax baranin waxaa ugala jeedaa aqoontan iyo xirfadan aad leedahay haddii aad la aamusto oo aadan dhaqdhaqaaq samayn waxba kuuma tarayso marka isku day inaad dadka barato networking fiican samayso magaalada gasho free ku shaqayso aad xirfadii aad ku darto khibrad iyo markaa shaqo markaas bay kugu tari doontaa aqoontaada iyo xirfadaada hadashan aan kusoo gabagabayn doono waxaa weeye haddii aad comfort zone ama nafis iyo raaxa ah ku jirto weligaa ma kori doontid si marka aad u korto waa inuu noloshaada jira challenges iyo waxyaabo markaa ku eryanaya waa in raaxada ka baxdaa waa in magaaladan aad joogto haddii ay tahay magaalo la qabsato oo aad intaas wixii soo kacdid aad shaqaysid aad soo baxdid aad mala fadhiisatid isku day inaad magaalo kala tagto oo challenge aad samaysid dad cusub aad baratid isku day inaad guursato oo aad noloshaada culaysyo badan kusoo kordhiso sababtoo challenge bay kuu noqonaya qofka markuu isbedel sameeyo waxaa laga doonaya marka reerkaa inuu marka horumar gaarsiiyo caruur baa imaanaysa inuu koriya laga doonaya waxaas dhan waxbaa ka baranaysaa marka iska ilaali comfort zone inaad shaqo yaroo nafis ah iska haysatid gurigaaga shaqada u dhexaysid aad galabtii meel soo fadhiistay habeenkii soo noqotid oo aad routine iska gashid hadhow waxaa imaan doonta markaa nolosha dee culays kugu timaado in meel aad u baxdaa weyso marka challenge abuur business bilaaw side hustle bilaaw halkaa ka dhac waxuun isku daday dadka dhexgal dad cusub baro investment samee waxyaabaha cusub isku day inaad investment ku samaysid wax tijaabiso marka mararka qaar guuldarada laftirkeeda qofka waxbuu ka bartaa marka muuqaalka intaas kusoo koobaynaa haddii wax badan ka faa'iidino sii sheer garay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.